kombiyuutarku wuxuu ku jiraa maanta xirfadaha loogu baahida badan yahay haddana aad si free ah u baran karto mar walba oo aad taqaan adeegsiga kombiyuutarka waxaa kuu sahlan inaad ka shaqayso goob walba hadday tahay goob waxbarasho goob caafimaad institution dowladeed ama hay-ad madax bannaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عشر كان وحكو سابسي هاي كمبيوتر ويندو يا سيدا الله استعماله. عشر كان هرتا وحن كسوق هذا من ويندو يا وح أو هاي عاونا وحن كقارد دونا قريبا كميدا ويندو تايم. ويندو تايم أو هاي فرشين كودن بيعي حدنا تقول أكسنا ولا استعماله وحكدن بيعي كليا ويندو 11. wuxuu soo maray waxyaaba qaybo kala duwan ama version kala duwan soo maray laakiin version-kii u casrisanay ayaa ahay Windows 10 sababta loo yirina waxay tahay application-nada ayaa ku shaqeeya intooda badan aan gudagalna casharkeena labaad hadii ana casharkii koobaad aan soo daawan fadlan casharkii koobaad soo daawo waxa ka bilaabaynaa computerka iyo sida loo damiyo computerka waxa loo damiyaa dhowr nooc waxa ku tusi doonaa soo furta kan soo furta scanner keyboardka waxa loo damiyaa computerka inaad intention boontadiina soo qaado halka ku aadiyo aad ku tiraahid oo halkaas aad ku soo furto kadibna aad soo dhaqaaqdo power button aan imaato kadib aad intaan nooc midba marka damido kan waa start ida ee dib u soo shid kan waa shad oo dhaa toos u dami kan waa dami application-adii furnaa ay furan dami haynas computerka kan waa isla waa sidoo kale to application-adu hawsha meesha kala soconay taas waa mid koobaad mid labaad waxay tahay waxa isla qabanay control iyo escape waa la soo furay kadib meesha imaane isla wadadii hadana timare wadada saddexaad ayaa waxay tahay inaad taabato calaamada window ayaa taabane kadib inta imaane isla wadadii hadana mare saddexdaas qaab ayaa loo damiyaa computerka sidoo kale waxaan baranaynaa wajhadan oo ah desktopka mar waliba hore saan u sheegayba mar waliba waxa la arkaa marka uu computerku uu soo darmo waxaan baranaynaa sida kuwan loo qariyo meesha yaalo kooxda meesha taalo dhan sida icon-nadan loo qariyo meel banaan ayaa imaane right click ayaa ku leedahay dhanka ayaa bidix view ku dul aade inta usoo dhaqaaqe halkaas ku reference show wada meesha waa maran tahay waxa laga yaabaa inaad tiraahdo computerka waa cilad baa ku dhacday oo waa application-adii wixii meesha saarnaa dhan way qarsooyin farsamo aad lahayd kaama qarsoone kaama cilad ma haysatee aqoon yara ku haydo oo baalkii aan fahamsanayn marka isla meeshii hadana meel banaan imaad oo right click view ku dulaad kadib show desktop icons leh waa la soo celiyay marka waxaan rabaa kuwaan hadana tood inaa qaababkooda wax laga bedelo mar la yaryareeyo mar dhexdhexaad laga dhigo mar la waaweynaa isla meesha hadana right click view ku dulaad kadib halkaana imaane large icons waaweyn weeye waa asaas baa loo waaweyn hadana meel banaan oo right click ku dhah isla meesha ku dulaad medium icons dhexdhexaad ka dhig weeye waa xoogaa dhexdhexaad laga dhigay dadka iftiin indhaha ay araggu aad u yar yahay oo kale sabab ku isticmaali karaan sidoo kale isla meesha ku soo laaban waa view ku dul aaday small icons yar weeye taasna waa taas isla meesha anoo joogo waxaan rabaa inaan shaqo kasii dul qabto halkan ayaa right click dana meel banaan ku leeyahay marka hore view ku dul aaday halka waxa la sort by magacan isku aadi sidoo kale ayada ku soo laabana size by size han isku aadi kala size bay weeyeen sidoo kale isla meesha meel banaan ku leeyahay sort by items type ala hadana
saas baa haddana laga dhigi isku aada waa haddana sida u kala horeeya halkan ayaa haddana ku leedahay waa date modified taariikhaan isku aad taasna halkaas ayaan ka baxaynaa sidoo kaleeto waxaan sameyneynaa shaashadan hadda gurigana saaran waxaan rabaa shaashada in aan bedelo oo gurigan aan ka bedelo right click kadib intaa usoo dhaqaaqa waxaa leeyahay personalize halkan ayaa laga keenay halkan marka laga keeno kadib halkan